dalka Masar iyo waliba nidaamka la yiraahdo Israa'iil hadda xaaladoodu waa ka sii daraysaa marka la eego diblomaasiyadda. Masarna waxa ay beenisay walaaca ka soo baxay Israa'iil inuu yahay mid dhaba oo waxay leedahay waa dhalanteed ay doonayaan inay ku qariyaan xogo sax ah oo meesha yaala si wixii ay rabaan ay u samaystaan. haddaba wargeyska la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa qoraya dawladda Masar ayaa si cad u beenisay wararka ka soo baxaya qaar ka mid ah warbaahinta Israa'iil oo sheegaya in Masar ay kordhisay joogitaankeeda ciidanka gudaha go'aanka Siinaa ilaa iyo 70,000 oo askari in la geeyay iyo gaadiid culus iyo nidaamyo difaac oo casri ah taasoo soo dadejin karaysa labadan wadan inay isku dhaceen. hay'adda warbaahinta qaranka Masar ayaa war ay baahisay waxa ay sheegtay dhowr qodob oo kala duwan. waxay leeyihiin joogitaanka ciidamada qalabka sida ee Masar ee gudaha Siinaa iyo guud ahaan dhulka dalka waxa uu ku salaysan yahay go'aan iyo qiimayn taliska sare ee ciidamada oo lagu wajahayo baa la yiri ilaalinta ammaanka qaranka iyo difaaca xuduudaha dawladda Carbeed ee Masar. waxa la yiraahdaa dhaqdhaqaaqyada ciidan ee Masar waxay warbalba ku socdaan iskaashi isafgarad hore oo la yeeshay dhinacyada saxay heshiiska 1979 waa Israa'iil oo aysan marnaba jibin baa la leeyahay Masar heshiiskii iyo waxyaabihii hore loo galay. ujeedada ciidanka ku sugan Siinaa waxay tahay baa la yiri la dagaalanka argagixisada koordagga tahriibka iyo sugidda xuduudaha iyadoo aysan jirin wax tallaabo ah oo lagu weeqayo gudaha gobolka. bayaankan ayaa hoosta ka xariiqay in Masar ay si joogto ah ugu hoggaansan tahay qawaaniinta caalamiga ah heshiisyada iyo qawaaniinta bini'aadanimo intaba isla markaana ay ilaalinayso dhammaan ballanqaadyadii caalamiga ahaa oo horey loo saxiixay. hay'adda warfaafinta qaranka ee dalka Masar ayaa intaa ku dartay in dagaalka ba'an ee Israa'iil ay ku hayso dadka Falastiiniyiinta oo muddo ku dhow 2 sano sii soconayo isla markaana dhowr kiiloomitir oo kaliya oo u jira wadankeeda taas oo ay leedahay waxa uu danqayaa dadkeena dawladnimadeena iyo ilaalinta madax bannaanideena qaranka. sidaa daraaddeed Masar iyadu ma aha cid ku xadgudbaysa qaanuunkan. waxay sidoo kale Masar tilmaantay inay u aragtay qadcas isku day kasta oo la doonayo in loo raro shacabka Falastiiniyiinta gobolka Siinaa. halkaasi waa meesha oo u dig iyo dam leeyahay baa la yiri ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu isla markaana hadda uu hadba meel caasha gelinayo leeyahay dawladda Masar waxa laga qabto. diblomaasiyadda labadan dal hadda waa sii xumaanaysaa waliba waxay gaartay meeshii ugu xumayd ee taariikhda.